Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Asxaabta waa idin salaamaya dhammaantiin. Kusoo dhawaada maqal kale oo aan kasoo diyaariyey sida looga soo adeegto Alibaba. Muuqaalkan insha Allah wuxuu noqon doonaa muuqaal dheer oo dhammaystiran. Muuqaalada hore aan soo gelin jiray Alibaba, muuqaalkan wuu kasii dheeraan doonaa. Marka insha Allah haddii aad danaynaysan suuq Alibaba kasoo adeegatid, muuqaalka ilaa dhammaad ka dhammaystiro oo si fiican u daawo. Insha Allah tacaala waxaan rajeynaa suuqtigaada uusan kaaga khasaarin adigoon waxba ka faa'iidin. Marka muuqaalkan inta aadan horta Alibaba kasoo adeeganin waxaa u baahan tahay inaad intaan iska eegtid. Waxyaabaad iska eegayso waxaa waaye intaan ayaa lagaga baahan yahay. Intaan qodob aan meesha kugu keenay waa qodobada lagaga baahan yahay inaad raacdid step by step si aad horta suuqa Alibaba ugu soo adeegatid. Laptop ayaad isticmaali karaysaa, telephone ayaad isticmaali karaysaa, doesn't matter. Laakiin waa inaad qodobadan aad raacdaa. Qodobada waxaa ugu horeeya account, inaad account ka leedahay suuqa Alibaba waa muhiim. 2 waa inaad iska eegtaa verified suppliers, supplier-da verified ka ah. 3 waa inaad iska eegtaa years of trade, xilliga uu supplier-ka suuqa kusoo jiray waa muhiim. Wixii 2 sano ama 3 sano ka badan ayaa ugu wanaagsan. 1 sano waa dooran kartaa oo verified ah, balse 3 sano wixii ka badan ayaan kugula talin lahaa. Sidoo kale trade assurance isagana waa muhiim. Trade assurance isagana waa muhiim inaad iska eegtid. Lambarka 4aad waxaa soo galaysa waa negotiation, oo ah inaad la xaajootid intaadan wax iska iibsanin. Waa inaad qofka wax iibinaya aad la xaajootid. Mathalan waxaa rabtaa alaab jumla ah, inaad alaabta jumlada intaa rabtid aad u sheegtid, wuxuu kaa dhimi karaa maxeeda kala xaajootid. Waa suuq caadi kasoo adeeganaysa oo kale. Midda ugu dambeysa oo ah shipping ayaa ayadana isla eegi doonaa, oo ah alaabtaada sidii meesha aad doonaysay kugu imaan karto. Marka hadaa midda ugu horeysa ka bilaabno oo ah account, sida account looga samaystaa. Accountiga markaad suuqa Alibaba u soo gashid waa inaad account ku leedahay, waa qasab. Halkaas haddii aad hore account ugu lahayn, create account ayaad leedahay. Haddii aad account ku lahaydna sign in ayaad leedahay. Marka create account ayaad marka hore ku dhufanaysaa. Mathalan waxaan ka soo qaadayaa qof hadda ku cusub. Okay, create account ayaan dhahaynaa. Kadibna halkaan ayuuna keenayaa. Waxaad dooranaysaa meesha aad joogtid. Meesha aad joogtid ayaad dooranaysaa. Haddii Soomaaliya ay tahay meesha aad joogtid, Soomaaliya ayaad dooranaysaa. Haddii Kenya ay tahay meesha aad joogtid, Kenya ayaad dooranaysaa. Adiga meeshaan ayaad ka dooranaysaa. Kadib meeshaan waxaad lagu weydiinayaa waxa meeshaan aad u soo gashay, ma qof wax iibsan rabaa mise qof wax iska iibin rabo, mise labadaba ayaa tahay. Marka maadaama aan doonayno wax kasoo iibsano, buy ayaan leenahay. Kadibna waxaan gelinayaa email address-kaygaan gelinayaa. Kadibna password ayaad dooranaysaa. Password-ka markaad dooratid waxaad ku celinaysaa password-ka aad dooratay. Kadib company name waxaad doontaa iskaga qori kartaa. Hadaa rabtid magacaaga ayaad iskaga qori kartaa. Aniga haddaan doono Bashiir Shabeel ayaan iska dhihi. Kadibna magacaaga oo dhammaystiran ayaad halkaas gelinaysaa. Aniga magacaygaan gelini. Okay, kadibna telephone lambarkaaga ayaad halkaas gelinaysaa. Okay, inta ugu horeysa waxaa la rabaa in la geliyo 3 number, sida waxay rabaan 744 kadibna 4 nambarkeed kala qaybinaysaa. Kadib create account ayaad leedahay. Kadibna code ayaa soo dhacay. Code-kaas ayaa lagaa rabaa in halkaas gelisid.
kadibna ciwaankaaga ayaa saas ku soo gashay. Si halkaas ugu jeedid waa accountigayga. Halkan accountiga intaan horta meel ka raadin qaybta accountiga si fiican u fahanno. Qaybtaas kor waa accountiga. Marka halkaas ku dhufatid meeshan waxaa ku qoran Hi Bashir. Meeshan waa My Alibaba. Inta waa meesha ugu muhiimsan oo dhan marka order samaysatid orderkaaga meesha uu maraya meesha aad ka eegaysid waaye. Wax order hadda ima yaalo laakiin markuu order ku yaalo wuxuu ku tusinayaa orderkaaga meesha uu maraya. Meesha orderkaaga uu maraya ma la soo shiibin gareeyo orderkaaga. Supplierkii orderka kuu soo diray in kala meesha ka kala fiirinayso orderkaaga ilaa intuu kaaga imaanayo meeshaad kala soconaysid halkan waaye. Okay. Payments halkan waaye. Marka aragtid inaad payments ka saacdid sida inaad yani kaar bangiga oo kale hadda gelisid muhiim ah hodhow gadaal ka gelin kartaa haddaad aragtid. Laakiin haddaad aragtid hodhow inaad markasta kaar bangiga aadan gelinin markasta aad lacag bixinayso inaad kaarkaada gelinin. Hal mar ayaad kaarkaada gelin kartaa kadibna hodhow si automatic ah markaad qofka alaabta ka adeeganaysid si automatic ah ayuu halkan ugu jaranayaa. Waayo transfer ayaa jiro ayadana waa ku xiriirin kartaa. Okay. Aan ka soo laabana halkan. Ka soo laabana ayadaran. Okay. Waxaan u soo laabanaynaa qaybta weyneed Alibaba. Accountiga saaxiibyaal sidaas loo samaystaa. Asla fahanaan u maleynayaa. Marka waxaana kana profilkayga haddaad aragtid sawir aad saaran kartaa. Upload photo aad dhigi kartaa. Haddaad aragtid nambarkaad iska bedeli kartaa. Emailkaad iska bedeli kartaa. So maldaad waaye accountka waa intaas aad uma dhibana saas unbaa loo samaystaa. Okay. Qaybta labaad haddaan gudubno. Qaybta labaad haddaan gudubno oo ah verified supplierska. Supplierada verified ka ah. Supplier verified ah waxaad ku raadsan kartaa tusaale suuq ayaad joogtaa waxaad doonaysaa inaad alaab raasatid. Alaabta aad raadinaysid waxaa qortaa matalan halkan waxa laga raadiyo halkan. Tusaale waxaa rabtaa inaad raadisid okay. Saacadahan biyaha gelin. Okay. Saacadahan biyaha gelin oo hal mid ayaan ilaaway maadaama dadka igu xirantooda badan Soomaaliya joogaan. Lacagta waddanka meeshaan igu soo qormayso waa lacagta meesha aan joogo waaye. Waa bedeli kartaa. Waxaan ka bedelayaa halkaas. Kaas taga wax yar kaadiya sug. Meesha lacagta laga bedelayay. Waana soo laabtaa mar kale. Waxaa jirta qayb laga bedelo lacagta. Okay. Waa kana meeshan English zaaray ku saaran tahay. Ayaa tagaysaa qaybta currency-ga. Qaybta currency-ga waxaan dooranayaa kale USD ayaan ka dhiganayaa. Save ayaan dhahanayaa. Markaas aad yani igula fahantaan. Hadda marka waxaan qorayaa saacadii stainless watch saacadahan biyaha galin waaye. Okay. Ayadoo dollar ahaan ayaan raadinayaa marka. Waxaan hadda muhiimadda waxaan isla raadinaynaa waa verified suppliers. Supplierada verified ka ah. Okay. Meeshaan markaad soo gashid isagaa wuxuu ku kala dhigay haddaa laptop isticmaalayso wuxuu ku fiican yahay. Meeshaan hore ayaa ka filter garaysan kartaa. Verified suppliers ayaan leeyahay soo maratan. Haddaa aragtid hoos waa aadi kartaa oo inta waa ku arki kartaa. Qaarna verified ma aha soo aragtan. Qaarna sida kan oo kale waa verified. Meeshaas verified ayaa ku qoran. Haddaan kusii dhufto oo qaybta hore intaadan qaybta hoose aadinba halkaas waxa ku qoran aragtaan waa verified. Marka waa supplier verified ah. Verified ka waa qof yani supplier shirkadda Alibaba ay lacag ka qaado sanadkii la isku halayn karo
oo intaas sano waa kusoo ganacsanayay ama adiga lasoo hubiyey adresskiisa everything oo Alibaba ay make sure kusoo samaysay waay. Okay, supplierska hadda verified waa isla aragnay, aan ka gudubno midka xiga. haddaan u gudbo waa years of trade, xilliga uu suuqa kusoo jiray. Okay, saaxiibayaal, xilliga uu suuqa kusoo jiray waa muhiim. sidaan sheegay 3 sano iyo wax ka badan ayaan inta badanaa ku qiimeeyaa. 3 sano iyo wax ka badan. hadda kii aan hadda tagaynay fiiri, markaad inta imaadid qaybta verified ay ku qoran tahay, waxaa ku sii hoos qoran waqtiga uu kusoo jiro suuqa oo ah 12 sano. haddii xitaa hoos had imaadid, hoos soo degdegtid, shahaadiisa halkaas ka arki kartaa. waxaa kale tagi kartaa profilkiisa. hal mar ayaa idin tusaa profilkiisa. halkana waxaa ku qoran Dogon Skimia Watch Manufacturer. profilkiisa waa kana 12 sano uu kusoo jiraa, sida halkaas ka arki kartaan, waana verified ah. So marka qaar waxaad arki kartaa aanan 12 sano kusoo jirin, sida hadda kan oo kale 1 sano ayuu kusoo jiraa. So verified na maahan. So kuwan oo kale ha ku degdegina ayaan idin dhihi lahaa. hadda kan oo kale 9 sano ayuu kusoo jiraa, laakiin wax verified ah igama muuqato. kuwa kale idin tusa. kan oo kale hadda waa verified, 12 sano ayuu sano kusoo jiraa, waana isla asagii kii hadda isla eegayni waay. Okay, waayahay. verified kana waa sidaas. waxaa ka wada sanadka uu kusoo jiray years of trade waa intaas. Okay, qodobka ku xiga waxaa waaye trade assurance. saaxiibada, trade assurance calaamadan gold ahaanta ah ayaad ku arkaysaa qaybta hoose ee yani supplierada. trade assurance micnaheedu waxay tahay adigoo lacagta truus uma siinaysid qofka supplierka ah. meeshaad ka adeeganaysid waa Alibaba. markaad lacagta bixinaysid oo qofka aad maxeede aad wada heshiisaan, lacagta Alibaba ayaa qabanaysa oo dhexdhexaadiin ah. mar alla markii yani ay alaabta kusoo gaarto, oo alaabtaada yani ay kusoo gaarto oo hubisid, ayaa kadib Alibaba waxay sameynaysaa lacagta waxay ku wareejinaysaa qofka supplierka ah. haddii qofkaas trade assurance-ga markuu suuqa Alibaba uusan kaga jirin, it means lacagta asaga ayay straight ugu dhacaysaa oo Alibaba lacagtaas ma qabanayso. marka trade assurance-ga waa muhiim. Okay, supplierada trade assurance-ga isla eegna marka. waxaa sidan ka fudud xabad xabad u raadin lahayd. markaas anoo kale u joogtid, halkan ayaad ku dhufanaysaa trade assurance. supplierada trade assurance-ga dhinaca ku soo baxaya. marka trade assurance verified sidoo kale ku dhufso. yani waa filter galaysan. hadda waxaan filter galaystay verified. halkan x-kay saaran soo martaan verified supplier ayaan tigaraystay. trade assurance inuu ku jiro waa tigaraystay. Okay, marka hoosan isla eegna marka. kan waa kii hadayay waa verified, trade assurance uu ku jiraa, calaamadan gold ahaanta waaye. kan 3 sano kusoo jira, isagana ma xumo. calaamadahan waana verified, waana trade assurance uu ku jiraa. trade assurance-ga waa calaamadahaas 3 xabo oo gold ahaanta ah. somehow laakiin saacadan qaali waaye, laakiin kuwa raqiisa waa jiraan. midaan hadda waxaa lagu siinayaa $5. 12 sano kusoo jiro, waana verified, trade assurance inuu ku jiraa. soo wax garateen maaha. reviewskiisana ma xumo saa aragtaan. reviewska sidoo kale waa wanaagsan yahay. hadduu 4.5 ka badan yahay waa beel, ama 4.5, 4.4 hadduu ka koreeyo waa wanaagsan tahay, laakiin 4 hadduu ka hooseeya, storekaas hadduu 4 ka hooseeya oo xun yahay. hadda storeka reviewskiisa ma xumo, very satisfied waa dadka inta badan wax ka gateen, aad bay ugu qanceen. waayahay. trade assurance marka idiin sheegaya waa tan saaxiibayaal. calaamadaas gold ahaantaas aad aragtaan weeye.
haddaad supplierka ku aragtaan calaamadaas gol ahaanta it means wuxuu ku jiraa trade assurance soo ma aragtaan waa kana okay marka trade assurance sidoo kale waa muhiim qaybta ugu dambeysa saaxiib waa negotiation marka aan ugu muhiimsan suuqa marka intaas iska soo eegtid waxaad u baahan tahay inaad yani la xaajoon kartid supplierka waa muhiim inaa yani luqadii aad fahmi kartid haddii kale waxaad samayn kartaa haddaad translator isticmaali kartid haddaad English ka garanaynin af Soomaali ayaad ku qoraysaa translate ayaa dhehaysaa English kugu bedelaya kadib waa u baasta garaynaysaa qofka supplierka ah علشان markaa keyboardka ku qortid ayaad u translate garaynaysaa marka saaxiib intaadan ka iibsanin saacad waa kaasa inuu caadi maaha glasskeeda okay intaadan ka iibsanin waxaa u baahan tahay inaad chat nowdadid intaadan order u dirsanin waa qaybta aad u baahan tahay inaad kala xaajatid supplierka marka meeshaan ayaa lagu keenayaa okay inta ayaa wax ku qoraysaa damacaaga wuxuu yahay inta xaba aad doonaysid asaga laakiin meeshaan wax ku qoran minimum order alaabta inta ugu yar ee laga dalban karo waa 20 xabo 20 xabo wixii ka yar ma qaabilaya marka haddii maalan saacadan aad ka rabtid 20 ka badan waa la xaajoon kartaa laakiin 20 xabo oo kale waa minimumkiisa laba kale ma xaajoon kartid lama dhigi kartid 20 xabo rabaa wax iga dhan leena minimumkiisa waa 20 xabo laakiin haddaad doonaysid sidoo kale 100 xabo waxaa leedahay 100 xabaan rabaa meeqa ayaad iga siin karaysaa saas kadibna send ayaa dhehaysaa kadibna way ku soo jawaabayaan hadda meeshaas kor waxaa ku qoran local time-ka qofkan supplierka waqtiga ay u tahay waxay u tahay 6 saac iyo 30 daqiiqo oo maalinimo soo hadda dan qoraal qorid miis uu soo jeedaa uu nii soo jawaabi karaa soo waa qaybta wada xaajoodka wad kala xaajoon lahayd waaye waxaan isku dayaa inaan muuqaalka boosiyo qaybta ugu dambeysa ah shippingka saaxiib suuqa Alibaba waa ka dhex raadsan kartaa shipping hadda ayaan idin tusayaa qaabkaad ugu dhex raadsan lahaydeen shipping maalan qofka supplierka waa la xiriirtay alaabtii wax ka dalbatay wuxuu ku yiri xagin ku geeyaa ileen waxa laga yaabaa inuu kugu soo deliver gareyn karin meesha joogtid maalan Soomaaliya kale marka waxaa u baahan tahay qolooyin kale oo alaabaha ka soo qaada China kadibna Soomaaliya magaalooyinka Soomaaliya keeni karaan marka intagan Alibaba qaybta koowaad ku laabanina kadibna waxaan raadinaynaa shipping to Somalia kala qorina shipping to Somalia qoray kadibna waxaan isleeyahay qolooyinka alaabta ku soo shipping garan kara Soomaaliya way badan yihiin laakiin exactly waxaan raadinaynaa waa qolooyinka Soomaaliya ku shipping garan kara okay kana waxaan lay laakiin halka cilad oo jirta waa verified laakiin hal sano ayuu ku soo jiraa inkastoo 50% uu haasto dadka ka dalbadeen aad u badan yihiin halkan ay ku soo qoreen shipment origin transit days 7 to 9 days way shipping mode wadamada ay keeni karaan halkan ay ku qoran tahay okay hanbas laabto sidoo kale meeshaan waa ka hagaajin kartaa deliver to meeshaan ay ku qoran tahay deliver to Soomaaliya ayaan dhihi karaa okay save and kadibna waxaan raadinayaa qolooyinka Soomaaliya wax soo ship garayso
sea shipping Soomaaliya kale sea shipping waaye badana air freight ma sameeyaan China marka sea shipping ka waaye sana aad ku raadsan kartaa hadda ninkan oo kale 18 to 25 days worldwide ay sameeyaan adduunka dhan so waa badan yihiin laakiin waxaan kugula talin lahaa inta badanaa verifiedka inaad eegataan verifiedka inaad eegataan saaxiib mar kasta waa muhiim qolooyinka marka oo shipping waxaa sameynaysaa waa la xiriiraysaa markaa la xiriirto waxaa leedahay alaab ayaan doonayaa in laga soo qaado China kadib ayaga waxay ku siinayaan address markii ay ku siiyaan addresskii qofkii supplierka ahaa ayaad u diraysaa waxaa leedahay alaabteeda meesha sii geey kadib alaabta way qaadayaan meesha qofka shippingka kuu soo sameyn lahaa addresska uu ku siiyey ay ku geenayaan kadibna qolooyinka markay shipping agency-ga way kula soo hadlayaan alaabtaada inay soo gaartay ku leeyihiin kadib ma kuu furnaa ma kuu fiirnaa lagu leeyahay way kaa confirm garayn karaan markay kuu confirm garayaan kadib way kuu sajalaynayaan kadibna waxay ku soo saarayaan markabka kadibna qiimaha ay ku siinayaan qiimaha ayaad bixinaysaa kadibna alaabtaada inta ay kuu qabteen ay kugu imaanaysaa inta badanaan 40 beri ayay ku timaadaa hadday tahay sea shipping ayaana raqiisan ilaa air freight-ka badanaa waa qaali so saaxiibayaal sida marka aad ula hadli kartid muhiim waaye ayadana qafka kalsaan aad ugu dhufanaysaa kadibna chat now ayaad ku dhufanaysaa qaybtan chat now ka leedahay chat now markaa imaadid kadibna halkan ayaad imaanaysaa kadibna waad u qoraysaa yani caadad ula hadlaysaa waad salaamaysaa marka hore waxaa leedahay alaab ayaan doonaa in halkaas lagaga soo qaado oo China address aan u baahnaa leedahay addresska ku siinayaan addresskooda ayaa alaabta lagugu keenayaa marka addresskooda alaabta lagugu keeno way ku fiirinayaan kadibna laakiin waxaa muhiim ah marka hore ay ku weydiin doonaan alaabta lagu soo qaadaya size-keeda marka size-keeda waxa ku sheegaya waxay tahay waa qolada aad wax ka iibsanaysid waxaa leedahay total size-ka alaabtaasi sii kadibna total size-ka waxaad siinaysaa qoladan kadibna price-ka ayaa ku siin kara insha Allah taala sax maqalka taasoo ka egyahay aad idin salaamayaa maqalka hadii aad ka heshay like saar si asxaab badan u gaar u doonaysan alaab wax ka adeegtaan sidoo kale hadaa ku cusubtay channelka subscribe iyo soo saar aad ma santiin waa idin salaamaya dhamaantiin calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh